كنيري هجامي بلان إن بدن سومالينا هاي بيوقف على ودا إشي هجامي بلان إن بدن عداده فري هنانكا سبيادا هرسيداي عداهي ميلادا لهايو عدنبادا بايسي عمباليان كنيري هجامي بلان إن بدن سومالينا هاي بيوقف على ودا هشي هجامي بلان إن بدن تنيو إن بدن هجامي بلان عداده فري هنانكا سبيادا هرسيداي عداهي ميلادا لهايو عدنبادا بايسي عمباليان كنيري هجامي بلان إن بدن سومالينا هاي بيوقف على ودا هشي هجامي بلان إن بدن تنيو إن بدن هجامي بلان عداه لانو هليا تنيو هرمودا عداه هولكرو هالدورا تنيو هرسيدا عمباليان كنيري هجامي بلان إن بدن سومالينا هاي بيوقف على ودا هشي هجامي بلان إن بدن عداده فري هنانكا سبيادا هرسيداي عداهي ميلادا لهايو عدنبادا بايسي عمباليان كنيري هجامي بلان إن بدن سومالينا هاي بيوقف على ودا هشي هجامي بلان إن بدن تنيو إن بدن هجامي بلان marka hore waxaan si gaar ah u salaamayaa wasiir Khadiija Abdullah Mustafa iyo wasiir Maareeye oo runtii kolleegayga ahaa xildhibaanaha islahay xafladana si gaar u abaabulay asxaabta kale ee matalayaan dhamaantood waxaan kaloo si gaar u salaamayaa gudoomiyaha degmada Howlwadaag oo degmadayga ah sidoo kale asxaabtii reer Howlwadaag يا أصحابي هوري يقول هذا الجو لبضة runtii caawa farxadeyda laba soo koobi karo waan ka mahad celinayaa intii soo qabanqaabisay intii soo xaadirtayba xafladan qiimaha badan oo magaaladeedii marlabaad aniga oo mas'uul ah oo state mas'uulka ah lagu soo dhaweeyay tan iyo markii aan imid oo garoonka soo degay ilaa maanta waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada runtii sida la sheegay xasuus iyo waayo iyo farxad bayna gelisay waan jeclaa dad badan oo jiilkayga maanta halkaas ku aragnay iyo dadkii hore waa ku faraxsanahay inaan wada qaadano habeenkan siyaasadda ka fogay laakiin ma hadda xoogaa lagu celiyo horta ma waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo anoo saaxiibaday ku hadlay afkooda heshiiska dhacay annagu keliya maan heshiina heshiiska bulshada Soomaaliyeed loo qaado dadkoo dhan inay heshiiyaan oo la iscafiyo kursiga uu mahad la soo carara waa soo ceshan kartaa waa ku dheelahay waxaan ballan qaadayaa hadduu soo noqdo inuu soo ku soo noqdo hadduu galmudug yaalan waa ka daba tegayaa inaan kala shaqeeyaan halka sheegay صاحب قالي أو بدر عصور سقيني صاحب بدر كلا هو هاللي واللي بعنا هذا أنا قررنا إن اللي بقى وحضورنا إن أتقرب نجح إنسان ما هني ترون تروي اللي قبل المكان طبعا الجيش كان مقتصد وقاري وكسر بلوني سمرات
ama magacii hore x dhuusamareeb haddaba laga bedelay afkiina iska bartay intaas runtii wuxuu ahaa heshiis loogu danaynayo dalka iyo dadka waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muddadii dheereed oo shirkaas u fadhiyey waayadan dambe waa dhici kartaa media aanan war hayn baa mararka qaarkood wax badan sheega runtii intii la joogay dood fiican iyo wada xaajood lagu salaynayo maxaa dalka marxaladan dan ugu jirta ayay inta badan ku socday laakiin marna xiniftan siyaasadeed ma jirin kala aragtiduwanaantuna waa midda waqtigaas keentay in marka dambe meel la isdhihi karo iyadoo laga fiirinayo midnimada dalka xasiloonidiisa iyo qabsoomidda doorasho waqtigaysan oo waqtigeedii ah intaasaa saldhig u ahayd waana filayaa intaas intiinaba inaad u arkayseen inuu tahay in macquul ah oo cid kastoo meeshaas joogto ay sidaa u arki lahayd marka waxaan rajaynayaa sidaa loo sheegay heshiiskan cidna looguma darnaan cidna looguma roonaan wuxuu ahaa dalka danta iyo maslaxadiisa haddii cid ay leedahay abaalkiisa iyo magaciisana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ahaa cidda gartay in sidaas ay wax u dhacaan iyo saaxiibadii kale ee ka soo qayb galay ee maamulada matalayay iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo isaguna goobjoog ah waxaan rabaa siyaasadda uu ku dheeraaday inaan ku dheeraado marrabo intaasaan rabaa inaan ku xiro keliya inaan intaas sheego dabcan inaan iscafinay baan anoo saaxiibada qiraya marka inaad ansixisaan waan rajaynayaa ilaahay oo dhagaxtuurkaas iska daysaan insha Allah aadaan ugu faraxsanahay runtii in xafladan qabsoonto in saaxiibadii reer Wadaag ay halka joogaan in maanta runtii karaamadan iyo sharaftan ay aan halka ku helnay waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad mid ah meel walba wada joogo dabcan mas'uuliyad markaa haysid siyaasaddu waayadan dambe waa iska xarjiidkeeda badan yahay warkeedu waa gaar marka annaga xamar markaan joogi jiray maalintiina waa la feertami jiray habeenkiina waa la wada caweyni jiray marka haddii maalinta xataa dhagax la isku tuuro habeenkii waa la wada joogaa laba kala maqnaa dad ehelaa leeyahay runtiina dalka iyo marxaladdu maraya sababahaas keenaya oo ah dib u dhis baa lagu jiraa aragti kala duwanaantu waa shay dabiici marna xumaan ma jirto waxaan jeclahay inuun hadalka iga xumaan oo aan siyaasad waayadan dambe siyaasaddan ka sheekeyn jiro in la fogaanin inaan u mahadnaqo dhammaan intii halka ka qayb qaadatay ugu horreeya fanaaniinta qaranka zakariya kooxdii falka loorka ahayd ee halka caawa runtii wacdaraha ka dhigay iyo miidiyaha iyo inta kale oo khaasatan milkiilaha hoteelka iyo dadkii sidan cashadan sharafta badan iyo waqtigan wanaagsan iyo qiimaha la isku dubriday dhammaantiin waxaan jeclahay inaan iga mahad celiyo waayeen xasuusiyeen oo haddee dhulkii aan ku baashaali jirna wey marka insha Allah waxaan rajaynayaa muqdisho quruxda ay lahayd wuxuu ahaa amni quruxdu daaraha iyo dhismuhu macno badan ma sameeyo magaalo runtii labada habeenimo iyo saddexda habeenimo meesha la rabo la iska aadi jiray annagoo holodaag degan baan saddexda habeenimo cabdicasiis ka tegi jiray iyo labada habeenimo wax dhibaato ah iyo waxaad ka baqaysay ma jirin hadda waxa u weyn oo haysto waa arrinta amniga taasna waxaan rajaynayaa ilaahayna waa u baryeennaa dowladda iyo dadkeeduna waxaa la rabaa insha Allah dhammaantiin annagu wada inaan amniga u xoogga saarno haddii ammaan la helo waxyaabaha kaleeto dhan iyaga iska imaanaya marka insha Allah muqdishona waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar guddoomiyaha iyo maamulkiisana waxaan u rajaynaynaa waajibaadkooda inay gutaan degmada Wadaag si gaar waxaan u rajaynayaa xogteeda waan hayaa isbeddel inuu ka jiro waa la socdaa caqabadaha gaarka u haysana si gaar ah oo sheekaysanaa si gaar ah waxaan rabaa Wadaag wixii taraakay aan uga qabto ayay waa meesha ku soo barbaaray aad baad u mahadsantihiin mar rabo inaan hadalka xumeeyo oo wax badan ku dheero laakiin mar labaad ma maqdiin si gaar ah mar labaad ugu baahnaa
ورنتي هولودان كي دبتها هيدا وفان عيل قروي عيل إبراهيم أنا قولين رجع هالك كل شيء كده المدينة يعني بغلا يوم مرة أنا كحمل جوج جرا ضد مدينة جوج حمرتين يعني نيجي ضد أصل بلد كاما ضد كلام كسر عرّي وركا مدينة يهروا يعنوا بتكسر جريد لكن مقالوي بس أصل كها عدقة وهاكي موضوع يقولي عثمان مقعي سكر مقدر عثمان سنة عثمان يا عثمان بيدي سي يا بشير قومي يا هو ذاك نبضة نقير سي ولا وركانا وما سنتين وحرجينا يا فرحنا صايلة قامتها بانوان فرح سنة لبصنوا عليسي ومدحنونا عاول يقروا المركز meeshaas amaamay ugu dirteen meel sahlan maaha meel la isku naxay maaha marka xisaabtan anaga halkaas yaalla marka aad u mahadsantihiin waan ka mahadcelinayaa waxaana rajaynayaa kooxda waa beri iyo qabanqaabiyaasha halka iyo qadiijo iyo tiimka wasiirada garowe loogu macsuumeyn insha allah xilligu waqti anaga waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadnaqo gudoomiyaha ururka haweenka Batuula oo runtii dhowr jeerna nagu soo booqatay iyo hawladeedii gaarka ah iyo inta kale aan ilaaway oo dhalinyarada iyo haweenka iyo runtii Batuula shaqo balle waxa way dalka taariikh badan ay ku leedahay muddo dheer bay soo halgamaysay marka fanaaniinta oo dhan ay kasoo tagay hanuuriye reeroodanku ka mid ahaa hadda waa naga tagay aad baad u mahadsantihiin waa salaamaya dhammaantiin